baraha bulshada oo Soomaalidu ay ku wada xiriirto waxaa si weyn looga hadalhayaa guri taageerayaasha madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sheegeen in si mutadawacnimo ay ugu dhisi doonaan meel ka mid ah Soomaaliya. Gurigan oo ururinta dhaqaalaha ku baxaya dhismihiisa uu hadda socdo ayaa sababta loo dhisayo lagu sheegay mid loogu mahadcelinayo Farmaajo maadaama uu diiday ku takrifalka hantida qaranka lana dagaalamay musuqmaasuqa. Afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka mid ah dadka hormuudka u ololahan ayaa sheegay in fikirka uu ka dhashay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu aqbalay madaxweynihii hore. Qiyaasta qarashka ku bixi doono gurigan oo la rumaysan yahay in laga dhisi doono magaalada Muqdisho ayuu sheegay Cabdirashiid in aan weli la jaangoynin balse ay sheegi doonaan marka uu dhammaado ololaha dhaqaale ururinta. Waxa uu intaa raaciyay inaanay jirin xaddi go-an oo ay doonayaan inay ku soo xidhaan lacag ururinta. Dhanka kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa sheegeen xilligan aan loo baahnayn in lagu mashquulo guri dhis xilli dalka ay ka jirto abaar xooggan oo saameysay dadka iyo dunyada. Waxaa dadkaasi ka mid ah gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Thaabit Cabdi oo ay soo wada shaqeeyeen Farmaajo. Waxa uu bartiisa Facebook ku qoray qoysas baa qurac quudan qado iyo casho warkooda daa guri sharafeed mise gaajo aleelahay gaajo baa gurmadka mudan ha loo gurmado hooyada haraadsan sabiga iyo waayeelka gaajada u laynaya taabaa darajo sare leh diiniyan iyo damiir ahaanba. Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka jawaabaya arrinkaasi ayaa sheegay in abaartu ay jirtay xilligii uu talada hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu qayb weyn ka qaatay dadaalada wax loogu qabanayo dadkaas tabaalaysan. Ma jiro wax diidaya in dadka abaartu hayso aan u gurmano buu yidhi isla markaana aan dhanka kale hirgelino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ay ugu mahadcelinayaan madaxweyne Farmaajo madaxweynihii uu ilaaliyey ammaanada qaranka oo la dagaalamay musuqmaasuqa ayuu yidhi afhayeenkii hore ee Villa Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 23 May ka guuray madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa hadda ku nool guri ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Taageerayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamuus gaara loo sameeyo madaxweynihii hore isla markaana uu noqdo hogaamiyihii ugu horreeyay oo Afrikaan ah oo ay shacabka guri u dhisaan. Guddiga qabanqaabinayo ololaha guriga loogu dhisayo Farmaajo oo uu gudoomiye u yahay agaasimihii hore ee madaxtooyada Maxamed Cabdullaahi Ciise ayaa beeniyey eedeyn kale oo ah in qorshahan uu yahay mid lagu xalaaleynayo ama lagu xalaaleyn rabo lacag horey musuqmaasuq ahaan dalka looga qaatay. Madaxweyne Farmaajo waxa uu isagu daadihinaya hanaanka deyn cafinta Soomaaliya oo meesha ka saaray in mas-uul dowladeed uu ku kaco musuqmaasuq. Marka waa been abuur eedeynta ah in qorshahaasi uu jiro ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamed Xaashi. Mashruucan guriga lagu dhisayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa durba hareeyay muran ku saabsan sababta Farmaajo oo la rumaysan yahay inuu yahay milyaneer guri loogu dhisayo xilli ay gaajo iyo haraad u nafbaxayaan kumanaan qof oo Soomaali ah oo ay abaar ku hayso gobollo badan oo dalka ka mid ah. Hase yeeshee halista ugu weyn ee mashruucan ku hareeraysan ayaa ah cabsi la xiriirta in la doonayo in loo adeegsado been xalaaleyn lacag waxa loo yaqaano money laundering si malaayiin dollar oo kaasha loo marsiiyo nidaamka bangiyada oo haddii si toosa hadda loo geeyo ay su-aalo badan ka dhalanayaan bay leeyihiin qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimahaasi. Money launderingka waxaa inta badan adeegsada dadka ka ganacsado daroogada argixisada kuwa lacagaha dhaca iyo cid kasta oo doonaysa in lacaga kaasha oo aan lahayn raadraac ay ku shubato bangi. Dalalka caalamka ayaa waxaa inta badan u degsan sharciyo xadida lacagta kaashka ee qofka hal mar bangi geyn kara. Waxaa inta badan lagu xadidaa ugu badnaan 10 kun. Inkasta oo Soomaaliya aysan lahayn sharci noocaas oo kale ah haddana maqaamka iyo magaca Farmaajo ayaa soo jiidan kara dareenkooda isla markaana abuuri kara shaki badan haddii lacag tiro badan mar lagu shubo iyadoo sidoo kale ay fududahay in xogtaasi la helo. Dadka aaminsan in mashruuca guri dhiska Farmaajo loo adeegsan karo been xalaaleyn lacag ah waxaa ka mid ah Aadam Cabdulle oo ah aqoonyahan ka faalloodo siyaasadda iyo amniga degan isla markaana degan gobolka Minnesota ee Mareykanka. Waxa uu yidhi akoonadan waxaa looga dan leeyahay in loo adeegsado in lagu been xalaaleeyo hantida qaranka ee la xaday hanaan lagu sharciyeeyo hanti aan sharci ahayn. Sharci ilaaliyaasha gaar ahaan dalalka ajaanibka oo ay degan yihiin deeq-bixiyaasha dadka bixinaya lacagta guri dhiska waa inay baaraan akoonadooda ayuu yidhi Aadam Cabdulle oo ka hadlay akoonada loo furay in lacagta lagu shubo.